السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا شفيع فشيال الكاد نجد داون السنة وشفيع فشيال كسر قلبت شو وسكف معي هي عندنا يعني دور فريمات أنا كسوق بيو إن شاء الله حويه قلبت أنا ود نراهن سكرة شمع سنة يا دول أوجه هيو عالم كبندو بالوجه الدبدو بحثا مجرتو ميل كلا قوانيسا مجرتو dadku guryaha fadhiyaan qofkii dabada u baxayana waa qof ama sport u baxaya ama dawo u baxaya ama u baxaya adeeg u baxaya marka anigu yara jimicsi baan sameynayay bariyahan ma bixin marka waxaan doonayaa inaan idinku soo dhaweeyo dhowr fariimood oo yar yar oo gaagaaban oo aan social media ka daawaday oo soo jiitay baan doonayaa inaan idin sheego iyo waxaan la yaabay dawladda Somaliland ayaa waxay mamnuucday ama joojisay dhammaan masaajidadii iyo jamcii laga bilaabo Britole ay mamnuucday marka wuxuu masaasi inkastoo xaaladda Somaliland aanay gaadhin meel masaajid laga joojiyo oo meel khatar aanay gaadhin xanuunku daana ku badan oo dhaqanaa laakiin waxa aadaan ula yaabay waxa weeye markaan arkay qaadkii Itoobiya ugu iman jiray oo aan la joojin diyaaradii kaabka siday oo aan la joojin Ethiopia Airlines oo la sheegay dadka xanuunka imka laga helay inay yihiin dad dabada ka yimiyo dadka wadanka dabada ka soo galay yihiin oo ilaa haatan aan laga helin xanuunka qof jooga Somaliland gudihiisa aan la joojin diyaaradii oo aan la joojin meelihii makhaayadihii dadku isku yimaanayeen buuq ahaa meelihii wax laga cunayay aduu meelihii public ahaa dadku isku yimaanayeen aan la joojin ayaa la joojiyay masaajidada Ilaahay dadku ay cibaadada ku soo gudanayeen xanuunka Ilaahay waa keenay Ilaahay looga bari lahaa in xanuunka Ilaahay naga kor qaado ayaa la joojiyay marka taa aad baan ula yaabay aad bayna soo jiidatay aad baan uga xumaaday wallahi waayo dadka wadankii jooga waa dad ku nool masaajidada cibaadada ku noola oo aan sinaba uga maarmi karin masaajidka iyo cibaadada iyo jamaca hase ahaatee wax duruuftu keentay oo waxa la oran karaa waxa duruufta saamaxday laakiin xaalad duruuftu u saamaxday Somaliland wali kama jirto oo lama oran karo masaajidada la joojiyo waayo xanuunkii kuma badna soo sheegay waa talabaad waxa ka horeeya qodobo ayaa ka horeeya in la joojiyo masaajidada qodobadaas way ka mid yihiin kow la joojiyo meelaha dadku isku yimaadaan khayadaha meelaha kale dadku isku yimaadaan garoomada lagu ciyaaro aduu meelaha dadku isku yimaadaan oo dhan marfishadii qaadka laftiisa oo wadanka Itoobiya uga yimaada oo Itoobiya imka lagu tiriyo wadamada ugu badan Afrika bariga Afrika xanuunku aad u saamiyay in la joojiyo iyo diyaaradda Ethiopia Airlines oo iyaduna rakaab keenaysa wadanka oo la sheegay in rakaabka ay keentay wadanka in dadka ay keentay ay ka mid yihiin dadka xanuunka imka laga helay oo ah wadanka dibadiisa wadanka uga yimi marka intaas oo dhan la joojiyo ayaa ka horeeyay masaajidada la joojiyo dawladda Somaliland waxaan soo jeedinayaa haddii fariintayda gaadho inaan lagu degdegin masaajidada la joojiyo la joojiyo waxyaabaha kale ka horeeya masaajidada la gaadhin sida qaadka waxyaabaha kale aan soo sheegay diyaaradda rakaabka sida Ethiopia Airlines marka guddidana saasaan soo jeedinayaa dhammaan xukuumadda wadamadan gaalada aynu joogno waxa weeye iyagu waxay joojiyeen meelihii lagu khamriga lagu cabi jiray meelihii lagu tuman jiray baararkii meelihii filimaanta lagu daawan jiray
meelihii la iskugu iman jiray dee magaalooyinka waaweyn la iskugu iman jiray dadku ay iskugu iman jireen all waxaas oo dhan baa la joojiyey waa la mamnuucay marka dee gaaladii baa joojisay meelihii khamriga lagu cabayey meelihii wax lagu waxaynayey bal ka waran dadkii muslimkaana maxaad u malaynaysaa inay joojiyaan meelihii ilaahay lagu baryey meelihii macaasida ahaayee dee xumaana fadhi ku-dirirkii meelihii kale qaadka lagu cunayana la daayo waxa weeye taas musiibo aad u weeye musiibo aad u weyn oo ilaahay laga mangalo marka aad baan idin salaamaya asxaabta joogaan iska qaadanayay beerta haween baan iska joogaa inkastoo marba hareeraha eegayo booliska iska eegayo waayo waddanka waa la isganaaxaya qofka haddaanu arrin dee muhiima oo kaba dambaysa aan u bixin marka aad baan idin salaamaya ilaahay masiibooyinka ha naga kor qaado gudiya dabadba caalamku isku wada xidhan yahay caalamku dee waa xuduudo iyo qaarado u kala leeyahay laakiin waa isku wada dan oo isku wada xidhan yihiin waxaa taa daliil u ah dee xanuunkaasi suu usoo bilaabmay muddada imika 3 bilood laga joogo suu caalamka u saameeyey ee guri walba uu saameeyey oo qof bilaadan ku nool yahay ka aad baan idin salaamayaa tagayaa sidaa iyo ciao fadlan haddaan nagu cusub tahay channelka cusub tahay noo subscribe garee like iyo comment-guna waa dhankiina fiidiyogana sii share gareeya asxaabta kale soo gudbiya